xulka qaranka dalka Soomaaliya oo lagu wada inay ciyaar ku dhaxmarto dalka Koonfur Afrika xulka qaranka ee dalka yar ee Swatino ayaa soo gaaray magaalada Johannesburg ee dalkan waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay gudoomiyaal jaariyadeed iyo dhalinyaro kale gudoomiyaha dhalinyarada Maxamed Cumar Talyaani oo ah madaxa guddiga qabanqaabada ayaa warbaahinta la hadlay xaqiiqdii waa maalin kale waa maalin farxadeed waa maalin aan arkeyno dhalinyaradeena qaranka Ocean Stars oo ka soo degay markii ugu horeysay qaran Soomaaliyeed kubadda cagta oo ka soo degay South Africa maadaama South Africa ay gumaysi ku jirtay waagii qarankeena oo dhisnaa kadibna burburkii kadibna ay South Africa xorriyadda qaadatay waxaan isleenahay maanta guul ayay noo tahay waa dareen gaar ah waa qiimo gaar ah dhalinyarada qaranka Soomaaliya oo soo gaaray sidaas awgeed marka jaaliyadda ayaa halkan ku soo dhaweysay ayakoo daalan oo ognahay inay game shalay ka soo baxeen haddana waxaan u taaganahay inaan garoon ku soo dhaweyno jacayl maxaba awgeed sideedaba ciyaar waa galin dambe Soomaalidu dhahda hore nooga maamahday haddii homekii inoo laga soo badiyay xaqiiqdii waxaad ogtihiin World Cup-yada adduunka ka dhaco Germany iyo Spain 7 iyo 6 iyo wax la mid ah lagu dhufto marka qarankeennana insha Allah taala waxa rajaynaynaa inaan dareensiino inay joogan horta home waa inay soo baxaan guud ahaan jaaliyadda haddii noqon lahaayeen haweenka haddii noqon lahaayeen caruurta haddii noqon lahaayeen dhalinyarada iyo guud ahaan ganacsatada inay soo baxaan si aan u dareensiino inay ku dheelayaan gurigooda homeka xaqiiqdii taageerada qiimo gaar ah ugu fadhiya ciyaaryahanka markuu arko sawaxan iyo dad calankiisa waxay dhiig dheeraad ayaa galay marka Soomaalidu mar walba taageerada iyo ciyaaryahanada ka dhinteen waxaan leenahay jaaliyadda midniyo saharin oo soo baxa insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa gamekan 4-0 oo 5-1 insha Allah taala inuu gamekan ku dhamaado Mustafa Shirwac waa gudoomiyaha North West ee dalkan Koonfur Afrika waxa uu ka mid ahaa dadkii ciyaartoydan soo dhaweeyay maanta waxaan joognaa oo Tambo International Airport Johannesburg waxaan ku soo dhaweynay ciyaartoydeena qaranka 8 ciyaartoy waxa hogaaminayay kabtankeena kabtan Casaayo waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad soo dhawaada waxaan u rajaynayaa insha Allah guul qeyr Allah siiyo jaalidaha ama Soomaalida South Africa gobol kasta way diyaar garoobeen waxaa jiray group WhatsApp oo laga qabanqaabinayay waxaan hogaaminayay walaalkeen qeyr Allah siiyo Maxamed Cumar Talyaani gudoomiyaha dhalinyarada South Africa waxaan dhihi karaa si weyn ayaa loo diyaar garoobay in laga qayb galo ciyaarta waxaan rajaynaynaa insha Allah lugta labaad inaan guuleysan doono kabtanka kooxda Axmed Saciid Axmed Caysaanyo ayaa rajo weyn ka qaba in guusha uu dalkeeni qaadi doono wallahi horta waxa aad loogu farxo weeyaan marka dadka kugu soo dhaweeyaan wadan mataqaan martigu tahay marka jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka ku nool aad loogu mahadcelinaa sida ugu qurux badan ee nagu soo dhaweeyeen airportka insha Allah gamekan xagan ku ciyaarno insha Allah kubad aad ku qanacadaan oo aan badino ayaan insha Allah soo birinayna wallahi horta rajadeenu saas ma uu xuma 9 minute baa la ciyaaraya wax kasta oo dhici karaan marka insha Allah inaan gamekan badino ayaan soo baxnaa maalinta Axadda ayaa la filayaa in labadan koox ciyaar ku dhaxmarto gobolka Mpumalanga oo xuduud la leh dalka Swatino Cabduqaadir Xad Dhaqane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Johannesburg